بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada qoysbile ee tababarkeennii xirfadda xulashada lamaanaha waxaan ku soo jirnay afartii qodob ee dhaqanka Soomaalidu ay wax ku xulan jireen waxaanu soo qaadanay garashada iyo xishoodka waxaanu gelaynaa waaridka inanta dhalay runtii wuxuu qayb weyn ka ahaa hababkii hawlaha loo xulan jiray qaabkii gabdhaha loo guursan jiray looguna geed fariisan jiray waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ahaa in la og yahay waalidka dhaqanka Soomaalida hore waxyaabo badan ayaa jiray oo dadka dhaqankeennu ama shareecaduba ay xaaraan ka dhigtay laakiin waxyaabo waxaa jira markii Soomaalidu ay sheekaysato ama ay goobaha isugu timaado haasaawaha geedaha iyo goobaha xoolaha lagu hayaba in ay isku abticaayi jireen isku aabacaayi jireen ku kaftami jireen sidaa darteed inanta marka la guursanayo ama loo galo fadhiisanayo waxaa dhici jirtay in ka hor in la sii baaro oo maxaa laga baarayaa horta inanta waa ina hayo hooyadeeda waa tuma aabbaheeda waa tuma ogama jeedo nasabkii iyo qoyskii iyo sida Soomaalidu hadda ay wax ku doonato kaliya macnuhu maaha qofkan qiimkiisa la fiirinaya sharaftiisa la fiirinaya habkiisa dhaqaale la baadiguubaya qofka taariikhiisa la baaray originalki tayada la fiirinaya tusaale ahaan waxaa jiray waxyaabo dhaqankeenu qofkii lagu yaqaano ay ceeb ku ahayd isla markaana qofkii lagu yaqaanana ay ula noolaa sharaf xumo iyo dameer xumo ilmihiisana xataa aysan guuri heli jireen waxaa ka mid ahaa bakhaylnimada waa taqaanaa qofka bakhaylka ah cirib dambeed ma yeesho ma waaro waa cadow ilaahay sida moogtahay mar walba qofka bakhaylka ah oo naftiisa wax ma siiyo ehelkiisa wax ma siiyo sidaa darteed qofka marka martida ku soo hoyata qadiya lagu yaqaano inuu martida ka seexdo hadda way saamayn jirtay in gurigiisana lagu soo hoyday iska daaye in la yiraahdo hebel yaa dhalay hebel war naga daaye taas hadda odagin ka qabanalay oo bakhaylka ahaa martida ka seexan jiray qodob adag buu ahaa marka bakhaylnimadu waxay ahayd waxyaabaha hoos u dhiga guurka hablihii hore marka la xulanayo lagu qiimeeyo waxaa ka mid ahaa beenta qofka beenta haddii lagu barto waad ogtihiin diintu beenta meeshay ka joogta bakhaylnimadana meeshay ka joogta dhaqankana aad bay ugu farxun yihiin labaduba qofka haddii been lagu barto oo qofku beenlow yahay hebel beenaana la raacin jiray magacaasa la raacin jiray sidaa darteed dhaqan fiican ma ahayn waalidka beenta lagu yaqaano ilmihiisana way saamayn jirtay 3 fulaynimada waad ogtihiin markii baadiye la joogo qofka ilaahay uma ceeb asturin baadiyuhu waa meel challenge-geedu aad u adag yahay dadka xoolaha iyo waxay ku dagaalamaan baadkii biyaha ayaa lagu dagaalamaa ninka marka raggiisa ka hara ee markii colis qabta carara ee ama aan dagaalkaba soo gelinin hablihiisa lama guursan jirin oo waxaa laga baqanayay gabadhaas inay dhasho ninkaa raaca ogow waxa laga cararaya waa tafiirta inantu in ama ay bakhayl noqoto ama beenaalo noqoto ama fulay noqoto maanta maxaan ku qiimeynaa guurkeena waxaasu magaalaan soo galnay ma lees yaqaano bataatanba waa ka gudubna waxaas aqoon baa la yeeshay magaalooyin baa la yeeshay fulaynimo iyo bakhaylnimo iyo beenaalo iyo maanta waxyaabaha lagu faanay ka mid tahay casrigeena waqti waxay tahay niman ka been badan yahay ayuu ka fiican yahay niman ninka uu ka fulaysan yahay ayuu uga faan badan yahay niman ninka uu ka been baa maxaan ku yiraahdaa ishay waxaan ku yiraahdaa ka been badan yahana ka bakhaylsan yahana waa ka xoolo badan yahay saasaan aaminsanahay sidaa darteed baadiyiheennii dhaqankiisii halkaasuu joogay halkaana maanta waan joognaa maxaa ku baxay